arinta ninkan oo hadda dowladda Soomaaliya xafiiska wasaaraha warqad soo saareen ee ku sheegay ninkan inuu xafiis ka shaqeynin dadkan ay la yaabiyeen ninkan waxaan xoolo intuu ka keenay waxaan lacag intuu ka keenay nolosha ku jiro waa nolosha taajiriintu ninkan ku jira marka hadda waxaan rabaa ninkan shaqadiisa inaan faayo ninkan xoolaha meesha ka keenay ninkan bahay wasaare xafiis waana bahay uma qabo ninkan dowladda federaalka isma ninkan bahay u qabo wasiirada xitaa waxa laga yaabaa inuu wasaare ninkan ka aqoon ninkan wasiirada kala cag badiyaa ninkan marka saas rabaa inaan ku faayo laakiin ninkan waxa way waa la qiyaamay waxa qiyaamay beesh abgal cismaan qiyaamay maadaama gabadhoodu ninkan gabdho kale kula baashaarayo bahdilay oo daarood lacag u qaybinayo TikTok uu leeyahay gabadh aan la soo xaayo taqaana ramlan uu lacag siiyay oo adisa sheeka daarood camal ninkan majartani kadiya ninkan majartani waa loo yaqaana marka waxa way way aarsatay dadka shalay toole muuqaalka dhan wareejinaya malaba inay ninkan u noqotay waxba kama jiraan malaba waxay u maaday ninkan xalay toole muuqaalka u soo duubtay horta inay ka aarsato markay Nairobi joogtay waa la qorsheeyay shariif horta xog fadhiisa ugu maadaysin beeber ugu maadaysin waa la qorsheeyay waxa la yiri malaba markay soo baxdo ninkan u tagto muuqaalka ka soo duubto xafiiska wasaaraha warqada hala diyaariyo maalinta muuqaalka malaba la soo duubto saacada kadib waxa way hal soo saaro warqad ninkan uusan dowlad u shaqeeyay ninkan xafiiska tirsaneen sida la sameeyay macnaha waa aarsasho loogu talagalay waa warqada maanta la soo saaray waa confirm 100% way laakiin dadku waxay fahmayaan ninkan wixii uu wareejinayaan ninkan magaciisa waa taqaan Cabdinaasir waxa la imtixaana ciiga waa taqaanin waxa way ninkan waxa way Soomaali xukay hadda koran ka soo hadlay taqaana galgale ama nooc Maxamed qof la soo yaqaano waa ninkan reer Jubbaland wax badan ninkan Australia u tagay Australia dadka degan hadda ilaa hadana passport gacanta Australia ku haysta shan caruur iyo naaga u jooga Australia ilaa hadana waa qabaa ma furin ninkan waxa way Walmart ka shaqeeya waa taqaanin ninka Walmart nin ka shaqeeyo waxa way nin horta gacantiisa ay fadhiso way waxa way ilaahay gacantiisa lacag saas ugu gelinaa wallahi bilaa nabadi sheegay marka ninkan waxa way nin Walmart ka shaqeey jiray mataqaana wasaarahan waxa way Jubbaland waxa way reer Jubbaland ma dubay wasaaraha si qaaran saas xafiis shaqo lagu sii uma imaan xafiiska wasaaraha ninkan lacag ka sameeyo inuu lacag ka qaato ninkan markii soo ninkan lacag waa haysta ninkan waa confirm way marka xafiiska markuu imaado ninkan adduunka la iska galay macnaha sheeka adiga oo macnaha waxa way muqallasnimo oo waata ninkan sameynay dad badan oo waday wallahi cadeemadu waa lahaya gabdho badan oo ganacsato hata lacag ka qaaday oo lacagtiina macnaha waxa ninkan waxa Walmart waxa way lacag u dhiibanaysa konton kun u dhiibanaysa oo dollar adiga bil laba bil gudaheeda lacagta wuxuu kaaga dhigaa 70 kun ama 100 kun oo kaaga dhigaa macnaha maxaan faa'iido qabtaa 30 kun faa'iido qabtaa ninkan professional ku yahay ninkan waxaan qatar ku yahay ninkan gaaladii Australia ninkan ka dambayso marka nin oo waxa way oo ilaahay xoolo sii waa ninkan xoolaha ama tuugnimaha ku keeno ama isdambar ku keene horta ninkan waa nin waa u fadhisaa ninkan xafiis waana shaqo kama rabo marka abgalka maad waxa u maleeyaa ninkan inay ka aarsadeen no kama aarsanin ninkan waxaad uga aarsateen malabaad uga aarsateen macnaha waxaad cadaysan inuu xafiiska wasaaraha warqad soo saaro oo ninkan u dhaw ninkan naga matarsano abgaalo taas waa ku guuleysteen waa aad u guuleysteen laakiin kuma guuleysanin ninkan inuu yahay nin waxba haysan ninkan nin ilaahay xoolo sii waa ninkan lacag oo dhiibinay 50 kun wuxuu kaaga dhigaa 100 kun kaaga dhigaa marka dad badan oo lacag ka dhacay marka macnaha ka maqan gabdho badan hadda waxa way wallahi bilaa ana cadantayda keenay oo qaarkood had xamar moolal kula ayaga soo hadli doono oo ninkan lacag ka qaatay macnaha lacagahoodii faa'iido badan ma u keenin macnaha meesha kula heshiiyay macnaha uu uga baxay marka la isku dardaro gabdha qaar 10 kun maqan midaa 5 kun ka maqan midaa 4 kun ka maqan midaa mtaqaana 30 kun ka maqan oo ilaa hadda ninkan dhaay sugo waa idin siinay marka ninkan waa nin Walmart ka ilaa hadda ku shaqeeyo way Muqdisho soo fadhiyo ka shaqeeya ganacsatada shirkadaha yaryar iyo shirkadaha waaweyn ninkan asay hoos imaadaan waa confirm 100% way cid ugu ma jirto undercover ku shaqeeya ninkan xafiiska wasaaraha waa ka shaqeynay laakiin muddooyin ugu dambe xafiiska wasaaraha ninkan ka shaqeeya ninkan wuxuu ku jiro tomashu ku jiro marka aad ugu baashalay marka gabdhaha yar Muqdisho ninkan waa la tumanay oo caanka lama yaqaan mugtahay marka wuxuu sameeyay social media caan ugu noqday marka gabdhaha caanku marka oo lacag si gabdhaha iska lacag jecel yihiin hadda 2 kun cawada asiiso bis way waxa asagana 3 kun waxa way 2 sac gudahood ku sameeyay ninkan Walmart ka shaqeeya ninkan oo online ka shaqeeya ninkan marka waxa way horta Soomaalida faantaal raba ninkan wax ka maqan hadda ma jirto kaliya waxa way waa la fashilay macnaha inay ku qaraabanayaan magacaas xafiis wasaaraha aan ka shaqeeyo inuu ku qaraabanay waa la fashilay taqaana waxa way inuusan macnaha dawladda hadda u shaqeynayna waa la fashilay intaas leeyahay bas inay abgalka intaas way ku aarsadeen laakiin ninkan sidii uu taagay ninkan ilaa xoolo waa si ninkan cid u baraya ma jirto bawrkiisu ku dhex jira waan arki doontiin soo had u raaxaysanay aad ka fahmaysiin wax kama qama jirto ninkan muddo hal sano xogaa saan ku shaqeynay Muqdisho hal maalin aan ku dhahay hal sano xogaa hal sano laga joogaa 9 bilood aan ku dhahay hal maal xafiis weeraa ma tigin
hal sano ku dhawaadaan ninkaan muu qorneen xafiiska wasaaraha muu qorneen mishaarna ma ka qaadanen ninkaan magacaasu iska wato xoogaa ka shaqaynaa bas waana ka tegey asaa ka tegey lagama burin maanta waa kana cabdinaasir muuqaalkan waa arkaa haddaa been ka sheegaya hadduu dhaho been waa hadduu dhaho aniga weligay ilaahay aaminina cabdinaasir asaa ka tegey xafiis asaa ka tegey ka cid ka burisa ma jirto wuxuu arkay meeshii oo isdabayaacayo qabyadii waxba macnaa lacag ninkaan wuxuu ka shaqeynaya warkaas ka shaqeynaya ninkaan wuxuu rabaa lacag oo maanta dhan saas loo wadwado inta wax laga gadaayo qofkan wax laga faa'iidaayo qofkan khasaaraya qofkan kale uu kabaayo macnaa waxa waaye nin saas u barto waa ninkaan meesha waa joogi waa xafiis ninka waa jooga asaa ka tegey marka ayaga waa iska aamuseen oo shaba iska dheheen marka hadda marka waxaa la dhahay marka ninkaan xafiis dowlad ceebeynaa ninkaan waxa way subcadoo ka dilaa ninkaan gabdhihii magaaladii tiktok iyo ninkaan gabdhihii isku diraa marka nin gabdhaha isku diraayo gabdhaha xashi iyo meelahaas weynaayo balaa iska dhigaayo waxa waa ninkaan saqajaan waa ninkaan ciyaal suuq waa ninkaan ma matelo xafiiska wasaaraha sababtaasaa keenta marka inay maanta warqadda soo saaraan waa confirm waay ninkaan mar hore ka tegey ma joogo xafiiska ninkaan ma joogo ninkaan meelahaas isku qalaaminaya shariif wiilaa ka shakirin asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu